عادي أهان أنا شعب كصومالي ميل كستي شوجا وسوكيمي قف كشوجا برا يكشوجا علولا يكسير شوجا يكشوجا عضلة وحنو أركيين المسؤول كهاي إن سنترو هاي إن نضيوه هاي إلا قلها وسيرة مركن شوجا إلا أقل كه قف صومالي دبعت دي سوى دبعت ضيف ما أنت لكن ندبع قاره dadkii Soomaaliland matalayna culays badan baa haysta wixii kowdii January ka dambeeyay heshiiskii aynu labada aqal diidnay wixii ka dambeeyay dadku waxay dareemayaan culays waxay ku dareemayaan meelaha ay joogaan dad badan way noqdeen Soomaaliland bay ku noqdeen qaar soo socday oo dawladnimada iyo karti lahaa oo aqoon lahaa dib ay isu taageen qaar badan culaysyadaas haysta arrintaasi ma aha wax ku talagalo ajenda ah laakiin waa cunfi ay dareemeen cunfigaas oo u baahan inaanu de soo gudbino ila dadku ma ogaan karaan hadaanan anagu soo gudbino aan sheegin hay'adaha dawliga ah oo ay in badan ka maqan yihiin ee hoose bilmasal dawladda dadku laba dawladood baa jira Soomaaliland dhaxyaalo ah danteenu waxay ku jirtaa midnimada maadaama 100 milyan oo qof inagu wareegsan yihiin Soomaali marna kaba maarane midnimaynu u baahana iyo dood ah war malaha meesha waxba leeno gama ogola labada dawladood marka cunfigu wuxuu hiilinayaa dood ah waxba lagu ma ogola salaam bixinaya baasaboorka Soomaaliga qiimihiisa waynu naqaana ama garow ha joogo ama dhuusamareeb ha joogo ama Kismaayo ama Xamar qiimihiisa waynu naqaana $100 wax yar baa raaca Hargeysa markuu joogo waa $400 baa lagu qaataa ama Burco markuu joogo hal qof oo immigration ka joogo loo tagaa ma jiro lagala xiriira booliiska waa sida sirdoonka waa sida meel kasta oo institution dawladeed dadkaasi waa ka maqan yihiin kabacdi dabadeedna marka qof la xiro meel alla meel ay u tagaan ma haystaan sababtay systemkii dhamay booliiska kuma jiraan ee federaalka kiisi ay dhigay federaalka ay ku jirin kii immigration ka ay ku jirin dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin badan oo haysta waxa culaysyo dawladda mararka qaar ka imanaya hay'adaheeda haysta tusaale yar shalay arrin aad u muhiim ah baa la isku haystay shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adda aviation hay'adda duulista mar walba waxaynu u taaganahay ilaalinta qarannimada iyo madax bannaanida waa waajib laakiin shalayta waxa mucjiso lagu noqotay ninba xamartii hore joogi jiray baa wiil airportka ka soo qaaday marka wuxuu la soo maray hotel Quruba iyo sarti jirta Xuseen iyo Safay Center iyo Juba marka soo naxa warma Juba sidana warma Quruba sidana warma Safay marka ninkii baa wiilkii soo qaaday dhalinyarada ku yidhi waligeed basaas iska hayday because uu soo inta uu garanaya inay sidan ahayd kana sidan hore u garanaya aviation-ka shirkadahani waligoodba waxaan way ku qorqoran jireen laakiin waxa ku soo beegay 20 August normally Somaliland samarka xagaaga waxa yimaada 100,000 ka badan tii ugu dambeysay tan ma hubo kulay tan waa ka sii badan tahay 100,000 waxa ka yimaadaan dibadda siday tigidhada dadkaasi ku soo helaan Ilaahay uu baa og waxay noqdaan 22 August ilaa iyo 7 September oo iskuuladii lagu noqdaa culayskay dadkaasi dareemeen iyo telefoonada lagu soo dhacay Ilaahay uu tirsanta feerka 10 caruur lahaa 15,000 $20,000 tigirka ku soo goostay hadii tigirkooda la kansalo 100,000 oo qof $20 milyan halkeenu ka keenin lahayn oo magdhow waan qabnaa in dawladnimada la ilaaliyo in madaxnimada la ilaaliyo in muqaddas ay tahay laakiin maxaa January loo sameeyay waay maxaa December loo sameeyay waay maalinta dadku noqonayaan xanuun yani waxaanu doodaha midnimada markaad ku jirto ayaa la oranayaa waa maxay culayska inta leeg anagoo qabna inaan gorgorta laga gelin madax banaanida iyo sovereignty-ga laakiin haddana naxariis iyo raxmad bay u baahan yihiin maatadu إلا أسبوعاً دنيا الرقم الميسي
boqol kun oo qof baa noqonaya 10 maalmood marka runtii waxyaabaha waxaan aad u bogaadinayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre hadalkiisii habeen hore wuxuu ahaa runtii hadal midnimada wax taraya isu soo dhaweynta wax taraya markasta oo cunfi la abuuro waxay fogay innaga midnimadu maaha inay maaha khasab jujuub kuma imanayso waxay ku imanaysaa walaalow iyo kalgacal iyo soo dhaweyn iyo ummaddu inay isdhex gasho waan qabaa senator Muuse Suudi hadalkiisa xamar waa hooyo kalgacal badan bay dadka reer Muqdisho u hayaan Soomaaliya soo dhaweyn badan baa lagu qabaa laakiin hay'adaha dawladda qaar ka mid ah ayaad moodaa in cunfi ku jiro oo ay iyagu dadka eriyayaan oo taas u baahan runtii in wax laga qabto oo lagu eego aad baan u soo dhaweynayaa ra'iisul wasaare hadalkiisii wax weyn ayuu waxa daweeyay oo ka taray ninba soo wacay wuxuu igu yiri war madaxweyne xasan miyuu nacab yahay san ku wareynama nacme balaayeero hay'adaha joogta mushkiladda wada marka shaqada in runtii dadka sidii ay ahayd xamar hay'adaha dawladdu waxaan soo dhaweyntii iyo walaalnimadii iyo midnimadii in lagaga shaqeeyo dawladnimada midnimadu waa khasab oo ummadani meel kale tagmayso ilaahay baa hal jir ka dhigay oo hal qof ka dhigay laakiin haddii aynu cunfi abuurno de wuxuu noqonayaa laba qof oo isku yaalo khasab raba in lagu kala jaro taasina waa xanuun iyo geeri waxaan rabaa gudoomiye in aynu gole ahaan isu taagno inaynu ka shaqeyno midnimada inaynu ka shaqeyno wada jirka inaynu ka shaqeyno rol macna leh oo aynu ku matalaadeenu rasmi ku noqon karto khilaafiyada qabaa'ilka iyo isteediyada inaynu dhex galno aqalkii kan ka horeeyay ayaa bad moodaysaa inuu inaga fiicnaayo wufuud bay u diri jireen isteediyada oo calal aqal ribood bay ku soo celin jireen labadaas sano iyo labadaas saddexda bilood aynu jirnay hal maalin ribood isteedu maynaan dirno maynaan odhan maxaa lagu qabaa war koonfur galbeed ka soo warrama xaaladeeda maxaa ka jira Jubbaland daadad baa ka dhacay maxaa war ka haysan halka runtii waxaan rabnaa aqalku inuu shaqada dedejiyo wax badan la qabto hawlahan inoo yaalo hor inoo tabinta inoo lana aan wax ka qabanno waana soo dhaweynaynaa geed socodka dastuurka iyo dawladnimada